isha wararka adduunka SBS Television. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا warka telefishinka SBS xaruntiisa dhexe magaalada Muqdisho qodobada warkaad ku daawan doontaan hadduu Baraale ka noqdo daawadayaal waxaa kamid ah wasaaradda dastuurka xukuumadda Soomaaliya oo tababar u qabatay hay'adaha dawladda taasi oo loogu tababarayo sida ay u ogaan lahaayeen hay'adaha dawladda awoodooda taliyaha ciidanka lugta oo ciidamada xoogga dalka ee ku sugan gobolka Gedo u sheegay inay heli doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan qalabkii ay ku howlgali lahaayeen kala fadhigii shanaad ee golaha deegaanka ee magaalada Qardho oo ka furnamay magaaladaasi qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan hadduu Baraale ka noqdo daawadayaal hasaatee ku soo dhawaada isagii oo fidsan kulanti habboon daawadayaal ana ku bilownay wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa tababar u qabatay shaqaalaha hay'adaha kala duwan ee dawladda kaasi oo lagu tababarayo sidii u ogaan lahaayeen awoodaha ay leeyihiin hay'adahaasi qodobkani noo dhameystiro wariyeena shaasha dawladda Soomaaliya ayaa wada baahinta awoodaha iyo habka loo marayo waxaana la barayaa hay'adaha kala duwan ee dawladda wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa barnaamij 2 toddobaad socon doona oo looga hadlayo baahinta awoodaha iyo wadooyinka la marayo ka furtay maanta Muqdisho waxaana labadaasi toddobaad markii ay soo idlaato ay wasaaraddu sheegtay inay gaari doonto maamul goboleedyada si loo xaqiijiyo awoodaha qaaska ah oo ay leeyihiin maamul goboleedyada iyo tan dawladda federaalka Soomaaliya u gaarka ah kuwaas oo hadda moodo in wax badan ay isaga dhex qasan yihiin wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa sharaxaya ujeedada laga leeyahay kulamadan 2 toddobaad ka soconaya Muqdisho iyo waxa ka dambeeya maanta halkan waxa nooga furmay bilowgii shirar isdaba jooga oo shaqo waa shirar shaqo kulan hawleedyo weeye waanu la yeelanayno hay'adaha kala duwan ee dawladda federaalka oo noo socon doona muddada 2 week ee soo socda kulamadaas oo aan wasaarad walba iyo hay'ad walba kula kulmi doono ayaa waxaanu ku soo dhiraandhirinaynaa aragtiyaha kala duwan khaasatan marka la eego xagga dib-u-eegista dastuurka mawduucyada kala duwan aanu ka hadlayno waxaa ka mid ah awood qaybsiga iyo jaangoynta doorarka kala duwan ee ay kala yeelanayaan maamul goboleedyada iyo dawladda federaalku ahamiyadda kulankan marka ay leeyihiin waxa weeye in la helo aragti wada socota oo dawladda federaalku ay leedahay markay noqoto xagga siyaasadaha kala duwan ee maamulka iyo maareynta hawlaha qaranka waxaanu ku rajo weynahay shaqooyin wacan oo soo qabsamay ilaa iyo hadda sida shaqada laga soo qabtay hanaanka cadaaladda shaqada laga soo qabtay hanaanka biliiska shaqooyin ballaaran oo wasaaradda arrimaha gudaha ay ka soo qabatay awood wadaagga iyo hawlahaas oo dhan inta aan isla meel dhigno in ka bacda aanu safarro u bixi doono aanu maamul goboleedyada ku tagi doono oo iyana la wadaagi doono afkaarta iyo mabaadiida asaasiga ee la rabo dastuurka inay galaan iyana ay wax naga oran doonaan ka bacdina madaxda qaranku halka intay ka wada xaajooto ay ku soo idlaan doonto arrinta dib-u-eegista dastuurka oo in muddo ah dadka Soomaaliyeed ay ka dhur sugayeen waxyaabaha ugu badan ee khilaafaadka badani uu ka taagan yahay ee dhinacyada dastuurka ayaa ah arrimaha ku tacalluqa awood qaybsiga dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada waxaana sidoo kale dastuurka uusan si cad u qeexayn awoodaha qaar ee hay'adaha dawladda Cabdishakuur Shaasha SBS Muqdisho kalfadhigii shanaad ee golaha deegaanka ee magaalada Qardho ayaa ka furmay magaaladaasi waxaana ka soo qayb galay kala fadhiga qaybaha kala duwan ee bulshada magaaladaasi sida warkan oo inoogu dhameystiray wariyaheena Muxyidiin Hiirada
waxaa magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar si toos ah uga furmay kalfadhigii shanaad ee golaha deegaanka ee magaalada Qardho waxaana ka soo qayb galay dhammaanba golaha deegaanka ee degmada Qardho ganacsato nabadoono sabadoono dhalinyaro iyo haween waxaa halkaa ka hadlay ugu horeynba gudoomiyaha golaha deegaanka Cabdi Siciid Cismaan oo ka warbixiyay kalfadhigani waxa uu ku saabsan yahay waxyaabihii uu qabsoomay iyo waxyaabaha soo socda ee ku tala jiraan runtii saaka waxa weeyaan kalfadhigeennii ayaynu halka ka furanaynaa insha Allah haddii alla yiraahdo runtii 6 bilood oo ugu dhameysay ama sanadkii ugu dhameeyay markaynu isku qaadno waxa inoo qabsoomay waxyaalo fara badan oo runtii meelo fiican inoo gaaray ay ugu horeeyaan runtii waxa inoo hargalay oo magaalada Qardho ka hirgalay 2 wado oo laami ah iyo deyrka gurigii uu ahaan jiray maayirka degmada uu ahaan jiray oo aynu ka helnay GBLG-ga runtii 3 mashruuc ayaa sanadka inoo ka hirgalay xagga GBLG-ga ama waxqabadka degmada waxa kale oo inoo hirgalay SDM-ka in la dayactiray 3 MCH iyo 3 iskuul oo u badnaa tuulooyinka ay hoos yimaada magaalada Qardho oo runtii dayactir u baahnaa iyagana wax laga qabtay runtii waxa jiray iyada wada jeey oo la dhigay oo iyadana wadada aada xurgoble waxa jira iyadana degmadu ay ka qayb qaadatay oo runtii GBLG-na dhinac kaga jiray barxadda weyn oo suuqa weyn oo beeraha dhexdooda ah oo runtii barxaddaas oo ay ku baxday lacag $24,000 oo markii hore aan loogu talagelin 6,000 oo kamid ah waxa bixiyay dadka ganacsatada oo magaalada bixiyay laakiin inta kale waxa ka qayb qaatay dawladda hoose argadana waa laga dhisay runtii argada quruxda badan waxa la rabaa in la ilaaliyo marka nadaafadeeda iyo horumarkeeda intaba in la ilaaliyo ayaa loo baahan yahay waxa kale oo laga hirgeliyay sanadkan runtii ilaa 3 ceel baa soonaha magaalada Qardho laga hirgeliyay 2 ceel oo magaalada NRC qotay iyo 1 ceel oo isku tashi ah oo dadka dadweynaha ay qodeen garheleed iyagana waxa ahay waxqabadkii runtii sanadkii la soo dhaafay ama 6 bilood ugu dhameysay ayay ahaayeen runtii waxa jirta iyadana in xabaal reer iyadana laga hirgeliyay deer weyn oo 600 oo mitir ah hal iskuul dugsi sare hal boodhan hal wuxuu yahay ardo quraana oo mahad celinaya inta badan waxa ka qayb qaatay dadka deegaanka ayaa ka qayb qaatay oo dhismaha iska lahaa oo runtii ilaa wax looga mahadiyaa runtii hay'ado badan baa xagga ka caawiyay horumarinta ama xagga livelihoodka oo ugu horeeyaan hay'adaha WFP DRC NRC Care oo runtii intaas oo dhanba ay ka qayb qaateen dadka noloshooda ama livelihoodka iyagana waa mahad celinayna waxa kale oo mahad celinayna runtii waxa ka hirgalay dawladda hoose ee magaalada Qardho barnaamijka la yiraahdo FMIS oo ah nidaamka maareynta maaliyadda oo runtii lagu maareeyo xisaabaadka dawladda hoose galaan 3 wado oo runtii la rabo in laga helo hay'adda GBLG-ga iyo hal MCH oo kaamba ah intaas inay noo qabsoonto sanadkan oo mashaariicda aynu ka heli jirnay ah runtii waxa kale oo inoo qorshaysan 4 iskuul oo dayactirkooda ah oo tuulooyinka u badnaan doona haddii la yiraahdo iyo 4 MCH oo iyagana tuulooyinka noqon doona inta badan iyagana in la dayactiri doono insha Allah taala waxa jiri doona iyadana in la qodo 2 ceel baa qodada ku jira insha Allah oo iyagana tuulooyinka qaybtood laga qodi doono waxa ku jira ceel hadeer socdo isagana oo safe oo meesha la yiraahdo IDB-sida loo qodayo aan wali dhamaan insha Allah isagana waxa rajaynaynaa inuu guuleysan doono Ilaahay idankiisa iyadana in la helo oo waato inoo dhigay madaxweynuhu 2 mashruuc oo kala ah ay isbartiibadii magaalada Qardho oo magaalada geeskeeda laga dhigay iyo guriga madxafka iyo library-ga noqon doona oo ah guriga hore oo duqa degmada Qardho oo anagu aan deer ka dhisnay insha Allah iyagana waxa rajaynaynaa waxyaalaha inoo qabsoomi doona inay ka mid noqon doonaan waxa iyagana ku jirta oo madaxweynuhu ballan qaaday inuu wada gufure iyo isku xiri doono insha Allah ilaa suuqa si wadadaas ay noqoto wada bilic leh saddexa intaasna insha Allah waxa rajaynaynaa inay inoo qabsoomi doonto haddii la yiraahdo waxa jirta iyadana in laga dhisi doono waxa iyaguna halka ka hadlay haweenkii ka soo qayb galay iyo marti sharaf kaleeto damayntii waxa soo gunaanaday kalfadhigan
gudoomiyaha gobolka Karkaar Siciid Maxamed Faahiye. waa kalfadhigii ka mid ahaa kalfadhiyadii ay soo yeelanayeen golaha deegaanka. golahan deegaanku sidaan la socono waa golihii deegaanka Qardhood ee saddexaad ee ay Qardho yeelato. golaha deegaankana marka la samaynayo hadda waxa loo sameeyaa kulay inay ka qayb qaataan horumarinta degmada. waxaana loo baahan yahay golo walba meesha uu wax gaarsiiyay qoladii hore waxa ka qaldantay inuu ka faa'iideysto. waxa markaas uu talaabooyinka qaadayaana inay noqdaan kuwa macquul ah oo wax laga qaban karo. Maxyadiin Hiirad Kaatun, telefishinka SBS magaalada Qardho. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa si kulul ula dardaarmay ciidamada xoogga dalka kaasi oo uga digay inay ku dhex milmaan ururada siyaasadeed iyo ururada qabiilada. sida warkan oo mar kale inoogu dhameystiray wariyayna Shaasha. dowladda Soomaaliya ayaa waday muddooyinkii ugu dambeeyay tayeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana ay ka soo bilowday tirkoob guud oo lagu sameeyay guud ahaan ciidamada si loo hubiyo qofka saxda ee ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waliba darajada uu ka hayo. waxaana tirkoobkaasi kadib mas'uuliyiinta dowladda ay bilaabeen in wacyigelino lagu dhiirigelinayo ciidamada oo joogto ah la siiyo. gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida General Liibaan Cali Yarow ayaa saraakiisha iyo ciidamada ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed u sheegaya in aanan looga baahnayn inay ku dhaqmaan nidaamka qabaliga. waxaan uga digay inay u shaqeeyaan qaab qabiileed maadaama loo igmaday mas'uuliyadda iyo ammaanka guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. waxaana gudoomiyuhu uu sidoo kale xusay in ciidamada aanan looga baahnayn inay ku milmaan ururada isdiidan ee ka jira dalka. shaqadeena waxay tahay dalka inaan difaacno waay. ma ahan shaqadeena inaan qabiil difaacno. ma ahan shaqadeena siyaasad gooni inaan difaacno. waxa waay sarkaalka iyo askariga waxa xaraan ka ah in uu ka qayb galo shaqo qabiil, in uu ka qayb galo wax la sheegayo urur, in uu ka qayb galo hool kasto siyaasad keenayso, in uu ka qayb galo xaraan ay ka tahay. ama sarkaal ha ahaado ama askari aad qofka maalintuu qorto ciidan uu qorto ayaa waxa mamnuuc ka ah in uu ka qayb galo siyaasad wax sheeganay dhan. marka waxa maqlaynay meelahan ka maqlaynay nuxu aan maqlaynay saraakiisha iyo askarta waxaan rabaa aan u tagi doono inaan ugu digo inaysan ka qayb galin siyaasadaha meelahan ka socda. hadii askari aad tahay shaqadaada waxay tahay inaad ammaanka asugto. qof allaal qofkii la keeno waajibka ku saaran waxay tahay ammaankaaga sug. in cadowga oo aad la soo dagaalantay doolow shaqada aad ka soo bilowday inaadan dayacin mas'uuliyadda intaas waa bis wax kale laga maro. ammaanka sug. dawladda cid allaale cid ay keensatana waxaad ku qasban tahay inaad dawladda amarkeed qaadato. marka inta aan u istaagay intaas waaye waxaan idinka digayaa oo idin sheegayaa oo amarna ay tahay inaadan ka qayb galin wax sheeganayo urur ama qabiil ha ahaado ama siyaasad ha naqato. mamnuuc ay idinka tahay sababtoo ah qofka askari hadduu sheegto dadka dhan uu u dhaxeeyaa. marka dadka u dhaxaysa maxaad samaynaysaa? waxaad samaynaysaa qof kasto ammaankiisa inaad sugto oo handaabka adiga aad mas'uulka aad ka tahay ammaankiisa inaad sugtaa mas'uuliyad ay tahay. marka waxaan leeyahay waxa digniin iga ah ama qof kasto meeshan fadhiyo sarkaal ah ama askari ha noqdo oo naga maqan ha la sii gaarsiiyo inuusan ka qayb gali karin wax siyaasad sheeganayo iyo wax qabiil garab la siinayo. ma ahan markii ugu horeysay oo gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida General Liibaan Cali Yarow oo sidan oo kale uu sheego waxa ay dawladdu u igmatay iyo waxa ay ka sugayaan shacabka Soomaaliyeed ee ah xaqiijinta ammaankooda. Cabdishakuur Shaasha, SBS Muqdisho. taliyaha ciidanka lugta ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo muddooyinkii dambe ku sugnaa gobolka Gado ayaa ciidamada ku sugan halkaasi u sheegay inay dhowaan ay soo gaari doonaan qalabkii ay ku howlgeli lahaayeen. sida warkan ay noogu dhameystirayso wariyaheena Nimco Cabdisalaan Maxamed. taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdi Xamiid Maxamed Dirir
oo maalmihii la soo dhaafay kormeerayay saldhigyada iyo goobaha ay ciidanka xoogga dalka ku leeyihiin gobolka Gedo ayaa u ballan qaaday ciidanka inay heli doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan agabka ay u baahan yihiin ee muhiimka u ah howlgallada ciidanka. Generaalka ayaa aad ugu mahadceliyay ciidanka xoogga isagoona tilmaamay in ay yihiin ciidanka ugu awoodda badan Soomaaliya. aad bay farxad gelinaysaa inaan maanta hortiin soo istaago oo aynu si fiican isku xog wareysano aan arko waxa ay ku sugan tihiin iyadoo aan awalba hayay warbixinadiina joogtada ah iyo qaabka aad tihiin iyo sida aad maartay u nooshiin inta baan ogaa. haddana farxad waxay ii samaynaysaa inaan soo dul istaago marxaladda ku jirta. xaqiiqdii ammaantiinnu waa iga badatay. ammaantuna iskama imaan. intee ciidan baa jira, intee urur baa jirta, intee guutaa jirta. Soomaalidu kulli waa iswada xan ogta. qof waliba iyo ciidan walba oo meel jooga waxa uu yahay waa la yaqaanaa. ammaantiinna marka waxay intaa noogu badan tahay oo noogu soo gaaraysaa ama taliyaashiinnu aan soo gaarsiiyeen ama riboodada saan ku helayna aan soo gaarsiiyeen ama marka operation qaadaysaan aan la soconno inaad tihiin geesiyaal isku filan oo cadowgu uusan hunguriyeyn karin kalsoonina isku qaba. taa marka magaca waxaad kala siman tihiin oo haddaad fiicnaateen oo aad geesiyaashii qaranka tihiin oo dalkian aan hadda joogno aan nabadda ku marayno dadkii soo horseeday in nabad lagu joogo aad tihiin ammaanta ciidanka xoogga dalka oo dhan bay ka dhaxaysa. haddii aad xumaan lahaydeenna waxaa ku xumaatay ciidanka xoogga dalka oo dhan bay ka dhaxayn lahayd. marka halkii qof oo ciidanka xoogga dalka ah meesha uu joogo waxa uu yahay wax la wadaagaya la oran mayo waa hebel la oran mayo waa reer hebel yuu ahaa waa ciidan military xeeg tisaya ururka 49aad muxuu sameeyey waxa uu sameeyey waa military shacabka markaa sameeyay ku oran mayo waa hebel yuu ahaa wixii waxa sameeyey askari military waa military-guna waa la qaybsatay marka haddaa wanaagsan tahay wanaaggaas waa wada gaari yaa waxaan sameeyey ciidankaas sameeyey. waxaan marka rabaa inaad howlaha aad haysaan oo ciidannimada ah oo dal jacaylka ah oo geesinimada ku jirto oo halkaa intaad ka lugaysaan 70 kilomitir aad ugu tegaysaan cadowga waa waxaan la ilaawi karin taariikhduna xusayso. anigoo og inay baahiyo badan jiraan haddana aan rajaynayo maantana aanu saraakiishays aragnay ciidanka intiisa kalena aan hortiinna ka sheegi doonno allaha awoodda leh hadduu idmo inaad heli doontaan agabka idinka maqan ee aad ku howlgelaysaan haddii allah Nimca Cabdisalaan Maxamed SBS TV Muqdisho. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk Soomaaliya ayaa si kulul uga hadlay hadal dhawaan ka soo yeeray wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk Soomaaliya kaas oo la xiriira imtixaanaadka shahaadiga ee wasaaradda waxbarashada Puntland ay qabato oo ka soo horjeestay taasi oo sheegay in wasaaradda waxbarashada shahaado aysan aqoonsaneen aysan ardayda Puntland heli doonin. arrintan shirka jaraa'id lagu xusay waxaan rabaa inaan dib ugu laabto fadhigii ugu dambeeyay ee hotel Jasiira aanu ku galay wasaaradda Puntland ee waxbarashada iyo wasaaradda dawladda dhexe ee federaalka iyo xildhibaano iyo wasiiro dawladda dhexe ka tirsan ee ka soo jeeda deegaan doorashadaas ee Puntland waxaanu halkaas ku gabagabaynay sanadkii hore ardayda shahaadadoodii in la siiyo sidii ayaan loo siiyaa shahaadada ardayda sanadkii hore ka baxday. waxaanu ku ballansanayn wasiirka iyo wasaaraddiisa ragga ee wasiirada la shaqeeyaba oo wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dawlaha iyagoo goobjoog ah inaanu annagoo xildhibaana oo wasiirra nagu jiraan aanu Puntland tagno inta yar ee khilaafkaana aanu dhammayno intaan la gaarin teeramka dambe imtixaanka dambe ardayda dambe ee sanadka dambe u baahan shahaadada. arrintaas waxay noo ahayd arrin noo taagan. waxaanu rabnay hadda inaanu ku baxno Puntland oo aanu tagno waxaanu rabnay inaanu soo dhammayno intii yareed ee khilaafka ahayd meel wanaagsan ayayna noo maraysay. wasiir goodax ayaa degdegay anigu horey baan u idhi waa meelaan rabay ruumaygu eriyey
wasiirku isaga oo aan na soo wicin isagoo aan waxba noo sheegin ayuu go'aan qaatay idaacada ayuu afka la galay wixii uu ka sheegayna wuu ka sheegay waxaan leeyahay arrintaas annaga wali waa noo taagan tahay waxaan rajaynayaa inay guul ku dhammaanayso waxaan rabaa ardada Puntland inaan ugu baaqo annaguna xildhibaanna ka ahaan mayno dawladda dhexe idinkuna shahaado waa imiisaan taa horta qalbiga gashada niyadda gashada ku dega madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha mas'uuliyadda dalku labadooda ayay si gaar ah u saaran tahay lama siyaasadayn karo looma isticmaali karo awoodda qaranka laguma maaragtay dhibaateyn karo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan arrintaani marka go'aankeeda iyo taladeeda iyo wax ka qabadkeeda waxa laga sugayaa oo ay u taalaa madaxda qaranka iyaga laga rabaa inay arrintan tilaabo cad ka qaadaan go'aan ka gaaraan ay cadeeyaan mowqifkooda ku aadan xal u helidda ardada Soomaaliyeed ee goboladaas ku dhibaataysan ee shahaadadii ay xaq u lahaayeen loo diiday marka hadda xalka wuxuu ku jiraa inaanu kaliya aanu madaxda u gudbino arrintan wixii kala haboon ay ka qaadan lahaayeen ka bacdina markaas warku kala cadaan doonaa ama de arrintu waxay ku koobnaan doontaa wasiir Goodax ama waxay noqon doontaa siyaasad guud oo dawladda federaalku ay sidaa ku wada socoto haddii ay arday Soomaaliyeed oo muwaadiniin ah masiirkooda go'aan laga gaarayo inay shahaado heli karaan iyo inaanay heli karin ma ahan arrin uu awood u leeyahay wasiir Goodax oo kaliya ma ahan waa arrin ka weyn oo u baahan in ay ka tashadaan golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ama golaha baarlamaanku ay go'aan ka gaaraan arruun uu go'aan qaadashadeeda kaligiis leeyahay ma aha sidaa darteed waxaanu ka codsanaynaa madaxda dawladda madaxweynaha dawladda federaalka iyo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka arrintan in ay si degdeg ah jawaab uga bixiyaan maamulka gobolka Banaadir ayaa xariga ka jaray dhismo dhawaana la dhameeyay taasi oo lagu xanaaneyn doono xoolaha baadida sida warkan noogu dhamaystiray wariyayna Shaafici Nuur Maxamed xarunta baadiqabadka magaalada Muqdisho oo dib u dhis lagu sameeyay ayaa waxaa maanta xariga ka jiray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Filish gudoomiyaha ayaa xarig jarka kadib kormeer ku sameeyay xarunta qaybaheeda kala duwan oo ka kooban 3 qaybood waxaana halkaasi warbaahinta kula hadlay gudoomiyaha oo sheegay in ay maamulka dawladda hoose ee xamar gudanayaan waajibaadka saaran mudane gudoomiye waxa sharaf noo amaantay in degmada Kaaraan xeradaan maaragtay ay sheeg horumarinta badan lagu sameeyay maanta aadna xarig jarto waa kaaga mahadcelinayaa mudane gudoomiye horumarada aad degmooyinka iyo gobolka Banaadir ka wadaba sidoo kale inta waa kaaga hambalyeynaa gudoomiye kuna soo dhawow maantay xafladan sharaf kale oo aan maanta ugu talagalnay in xarig jarkii baadiqabadka degmada Kaaraan maanta aad nooga xarig jarto waan kugu soo dhaweynaynaa mudane gudoomiye ku soo dhawow sidoo kale gudoomiyaha degmada Kaaraan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay daafurka xaruntaas baadiqabadka waxay xalin doontaa ama ay qaban doontaa haddii aan la idmo xoolaha magaalada la isaga soo daayo ee bacaha cuna ee qashinka iyo wasaqda cuna ee hilibkooda iyo caanahooda ay dhibaato ka soo gaarto dadka in magaalada laga nadiifiyo oo halkan lagu soo xareeyo ayaa loogu talagalay xeradan isla maantay ayuu soo bixi doonaa haddii alla idmo go'aanka ku saabsan xoolaha magaalada la isaga soo daayo magaalada waxaa lagu soo dayn jiray lo'da iyo ariga balse hadda waxaa ku soo ziyaaday geel iyo dameero afartaas nooc ayaa waxaa loo dhisay 4 goobood oo aan kala fogeyn oo loogu talagalay dhammaantood in lagu soo xareeyo xoolahaas dadka iska leh xoolahaas waxaan u soo jeedinaynaa halkan inay xoolahooda ay xafitaan oo magaalada ay ka ceshadaan cidda ceshan weyda haddii aan la idmo waxaa jira ciidamo iyo gaadiid ay shaqadoodii tahay inay halkan ku soo xareeyaan magaalada marka xoolaha laga soo xareeyo oo ama dadku ay ceshadaan
ama neefkii la cesho waaye halkan lagu soo xareeyo waxaa soo baxaysa magaalo nadiif ah iyo xoolo nadiif ah oo aan wasaq iyo qashin iyo bac aan cunayn oo caanahooda iyo hilibkooduba oo caafimaad qabo. Shaafici Cabdinaasir Maxamed, Shaafici Shaacir, SBS Muqdisho. shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa waxa ay soo dhaweeyeen doorashadii ka dhacday galmudug ee lagu doortay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. sida warkan oo noogu dhameystiray wariyaheena Nuur Maxamed Macalin. kadib doorashooyin isxigxiga oo aan la isku waafaqsanayn muddo isbuucyo gudahooda ayay galmudug yeelatay 3 madaxweyne oo ay ugu dambeysay tii ka qabsoontay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug taa oo ugu dambeyn ku guuleystay xilka madaxweynimo ee maamulka galmudug. Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa waxaa aragtidooda ka dhiibtay qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada Tani Jowhar. maxaan maray Usmaan kuna nool degmada Jowhar waxaan aad u hambaleynayaa madaxweynaha cusub ee maanta loo doortay galmudug oo maanta aad baan ugu qanacsanahay sababtoo ah waa mid dawladda federaalka Soomaaliya ay taageersan tahay beesha caalamkan ay taageersan tahay marka Axmed Qoqor waxaan leeyahay hambaliyo magacaygu waa Cabdulqaadir Arwaax Shuqaale Xuseen oo ku nool caasimadda Hirshabeelle Jowhar waxaan halkan uga hambaleynayaa doorashada wanaagsan ee dastuuriga ay ka dhacday galmudug ee madaxweynaha sharciga ee dastuuriga lagu doortay anigu shakhsiyan ma taageersanin qof mucaarad ah umana baahni mucaarad wadanka sii kala qoqob oo dagaal ka rida waxaan jecelahay ninka ummadda Soomaaliyeed wuxuu qabanaya isu soo dhaweynaya ee xukuumadda federaalka Soomaaliya la shaqeynaya aad baan u hambaleynayaa madaxweyne inkastoo magaciisa aqoonin oo laakiin naanistiisa lagu sheegay in la yiraahdo Qoor madaxweyne Qoor waxaan leeyahay ahaw madaxweynihii galmudug iyo dawladda federaalka Soomaaliya isku xidhi lahaa wuxuu qaban lahaa dadka midayn lahaa ummadda bulshada u shaqeyn lahaa noqon lahaa nin Soomaali ay ku dayato sida Puntland ay u shaqeynayso kale u shaqeyn lahaa ee dalkiisa iyo dadkiisa wuxuu qaban lahaa inaad ahaatid ayaan aad iyo aad u jecelahay waan ku salaamay magacayga Faysal Macalin Ismaan haddaan ka hadlo doorashada galmudug waxay leedahay wajiyo fara badan ee lahayd maalmahan waxayna qabsatay baraha bulshada sida Facebook Twitter dhammaan baraha bulshada oo dhan ayay qabsatay xaaladda galmudugna waxay tahay xaalad oo qasna ayay ahayd hadda waxay yeelatay 3 madaxweyne laakiin aniga fikrad ahaantayda waxaan aaminsanahay in qorqor inuu yahay madaxweynaha dhabta ah ee galmudug inuu yahay aaminsanahay waayo adduunku wuxuu u baahan yahay sharci. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. waan idin salaamay bahda saxaafadda maanta waraysigan kooban oo ka dhacday doorashada galmudug maasha Allah walaalayaal horta doorashada ka dhacday galmudug maasha Allah mid waxay ahayd aad iyo aad u xamaasad badan maanta oo dhan waan daawaninay marka maasha Allah waan soo dhaweynaynaa hogaamiyaha cusub oo loo doortay galmudugna waxaan rajaynaynaa khilaafka badan iyo isqa qabsiga badan iyo culimada iyo waxa ka jira galmudug oo dhan insha Allah waxaan rajaynaynaa kii xali doono inuu yahay oo dhan walbaba oo galmudug dhisitaankeeda in badan waa jahwareertay galmudug laakiin ninkii samata bixi lahaa oo in badan oo barnaamijyadaas oo ka shaqeynayo inuu waxaan rajaynaynaa waan u duceynaynaa xilka oo qaaday oo maantana u dhaartay madaxweynaha galmudug aad ayaan ku soo dhaweynay ninkii dalkiisa iyo diintiisa waxa uu tara alla ka dhigo dadka shacabka waxa uu dhaaratay dadka cadaalad inuu ku dhaqdid cadaaladaas iyo balantaas oo kitaabka ka gashay inuu ku dhaqdid ayaan ku soo dhaweynaynaa jaaliyada. xaaladda galmudug ayaa ah mid aan xasilnayn oo ay ka talinayaan maamullo isbarbar socda. laba ka mid ah maamuladan ayaa fadhigoodu yahay magaalada Dhuusamareeb halka kan kalena uu yahay magaalada Gaalkacyo. Nuur Maxamed Macalin, SBS TV Jowhar. inta ayaa ku soo gabagabeynayna warkii aad kala socoteen telefishinka SBS xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho. warka intuu hawada ku jira waxaad la socodsiinay anigoo Cabdullaahi Maxamed Sheekh Doona. inta warkan kiisi xigaan ku wada kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo fi amaanillah. isha wararka adduunka SBS Television